مسؤوليinta urur siyaasadeedka cusub ee jamhuuriga ayaa xafiis cusub ka furtay magaalada Hargeysa. Xafladda furitaanka xafiiskan cusub oo lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ku-meel gaarka ee ururkaasi iyo qaar ka mid ah taageerayaasha ururka. Gudoomiyaha ku-meel gaarka ee ururka jamhuuriga Ismaan Xasan Mire oo hadal kooban ka jeediyay madashaasi ayaa sheegay in xafiiskani uu noqon doono xarunta guud ee ururka. Waxaana xusay in ay dhawaan u bixi doonaan gobolada si ay u soo furaan xafiisyadii gobolada iyo degmooyinka ee ururka jamhuuriga. waxa kale oo uu sheegay in ururkoogu yahay mid u furan dhammaan bulshada Soomaaliland. Gudoomiye ku-xigeenka ku-meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka jamhuuriga oo isna hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu xusay in ururkoogu u taagan yahay horumarinta bulshada Soomaaliland isla markaana ay dhawaan gudagali doonaan xulista xubnihii u tartami lahaa golayaasha deegaanka oo ah buu yidhi aasaaska iyo horumarinta bulshada Soomaaliland. waxaan uu tilmaamay in himilooyinka ururka ay ka mid yihiin sidii looga midhadhelin lahaa qadiyada goon isku taagga Soomaaliland iyo sidii loo abuuri lahaa hanaan cusub oo lagu horumarinayo dhammaan adeegyada bulshadu u baahan tahay. munaasabadda furitaanka xafiiskan cusub ee ururka jamhuuri waxa kale oo hadal ka jeediyay xogayaha ku-meel gaarka ee ururkaasi Maxamed Cabdilaahi Ashari iyo xubno kale oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururkaasi. waxaanay dhammaantoodba tilmaameen in ururku hadda laga bilaabo uu furan yahay dhammaan bulshada Soomaaliland.